xabaalaha ama qubuuruhu waa hoyga rasmiga ah ee qof waloo bini'aadamihii uu ku dambaynayo. halkani waa xabaalaha degmada Togwajaale. xabaalaha magaalada Togwajaale oo qiyaastii magaalada u jira masaafo dhan 2 kiiloomitir waa goobta kaliya ee lagu aaso dadka maytida ah ee ku dhinta magaalada Wajaale. dhibaatada ka jirta xabaalahan ayaa ah in xabaaluhu barbarka u saaran yihiin goobta ugu weyn ee magaalada Wajaale la keeno qashinka iyo wasakhda laga soo qaado hodheelada iyo meheradaha waaweyn ee magaalada Wajaale. xabaalahan iyo goobta qashin-qubku waxay isku jiraan wax ka yar 2 ama 3 mitir. mushkiladda ka haysata dadka xabaalaha u yimaada si ay ugu qodaan xabaasha dadka xaqu ku yimaado ayaa ah in urta iyo qarmuunka wasakhda dabayshu soo qaadayso ee ka soo baxaya wasakhda iyo qashinka meesha lagu qubo aanu qof bini'aadamihii xamili karin. waxaa intaa dheer in habeenkii uu yimaado ama uu ka qaraabto xayawaanada loo yaqaano waraabaha iyo kuwa kale ee duurjoogta ahi, kuwaasuu khatar gelin karaa dadweynaha kala duwan ee halkan u yimid si ay ugu aasaan maytida dhimatay. goobtan qashinqubka wah magaalada qofna ma xamili karo haddii uu ka maro xagga dabaysha urta iyo qarmuunka ka soo burqanaya kaasoo beddelaysa dareenka qofka, maadaama wakhtigan aynu ku guda jirno xilli roobaadkii oo sababaya inay badato urta, qashinka biyuhu ku dhacaan iyo xanuunno kala duwan oo laga dhaxli karo haddii aan wax laga qaban. arrinta qof kasta uu damiirkiisu diidayo oo ibni'aadam ah ayaa ah in xabaalaha oo ah kuwa aynu ku aasnay dadkii aynu ugu jeclayn iyo eheladeennii kala duwanaa ee aynu ugu jeclayn ay nagaga horreeyey geerida ama xabaasha ay wehel ama deris la noqdaan xarunta qashinqubka magaalada Wajaale oo qof kasta oo inuu ka ag dhowaada aanu xamili karin urta iyo qarmuunka ka soo baxaysa.